maalqabeenka faqiirka ahaa yuusuf cali oo hindi u dhashay islamarkaana faqri ku galay dalka imaaraadka carabta xilligan waxa uu ka mid yahay maalqabeennada ugu caansan adduunka. Lulu Hypermarket oo ah mool uu aasaasay ninka maalqabeenka waxa uu ku yaalaa 37 dawladood. Shaqaalaha ka shaqeeya ayaa lagu qiyaasay inay gaarayaan 60,000. moolka ugu weyn ee ku yaala magaalada Abu Dhabi ee dalka imaaraadka carabta waxa yaala wax kasta oo bini'aadamku u baahdo sida cuntooyinka, dharka iyo biraha jirdiska iyo wixii la mid ah. dalka Qatar oo ka mid ah wadamada carabta waxa imbiratooradan ay ku leedahay 10 xarun oo aad u waaweyn. sidoo kale wadamada khariidka ayaa la mid ah ay ku leedahay 166 xarun oo la mid ah kuwa caalamka. Yuusuf Cali waxa uu ka soo jeedaa koonfurta dalka Hindiya gaar ahaan deegaanka Karun, balse dhulkiisii waxa ka soo saaray saboolnimo haysatay isaga iyo qoyskiisa. si uu nolosha labadiisa waalid ku qoodiyo ayuuna u tagay dalka imaaraadka carabta isagoo xilligaasi waxba gacantiisa ku jirin. Baagamuuddo shaqo la'aan ayaa haysatay markii uu tagay dalka imaaraadka. waxa ugu muhiimsan ee xilligaas uu ka fikirayna waxay ahayd halkee ayaa hoy ku noqon doonta, maxaase noloshaada ku maareey doonta intaad joogtid dalkan. sanadkii 1973 xilligaasi wuxuu ahaa 17 sano jir, waxaana uu kulansaday afkii looga hadlay halka uu tagay oo uusan aqoonin, aqoontiisu aan ku filnayn. waqtigaasina dalka imaaraadka carabtu ma ahayn wadan ay ku badan yihiin dadka ajaanibta ah, noloshuna aad ay u adkayd oo ma ahayn xilligan siduu yahay dalka imaaraadku. waa qiso cajiib oo taaban karta qof walba oo hamigiisu sugan yahay ama uu wanaagsan yahay, waxaana ku siinaysaa daawado dhiirigelin. haddii aad isku daydo inaad naftaada dhistona aad horumarin karto oo noqon karto sida ninka maalqabeenka ah xilligan. Lulu Hypermarket waa mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn adduunka gaar ahaan Aasiya. Yuusuf intaas kuma akayn, waxaana uu leeyahay hoteelo caalami ah, warshado wax soo saaro iyo garoomo diyaaradeed. qisadani waxay sheegaysaa in ninkan uu dadaalkiisa ugu badan uu ku bixiyay ganacsiga si uu noloshiisa u sii horumari lahaa halka ay taagan tahay. Yuusuf Cali markiisii ugu horeysay uu tagay dalka imaaraadka carabta waxa uu ka shaqeeyay xarun lagu sameyn jiray cuntooyinka fariidka ama la qaboojiyo. mar walibana waxa uu ku fikirayay inuu ka baxo shaqaalanimada oo uu helo ganacsi isagoo u madax bannaan yahay. kadib muddo 2 sano oo ka shaqeynaya xaruntaasi waxa uu go'aansaday inuu xor noqdo, waxaana uu bilaabay ganacsigiisii ugu horeeyay. Yuusuf Cali oo ah ninka maalqabeenka xilligan balse faqiirnimada ku gala dalka imaaraadka carabta waxa uu ka bilaabay ganacsiga gudaha magaalada Abu Dhabi ee dalka imaaraadka carabta, waxaana uu inta badan ka ganacsan jiray jumlooyinka iyo sidoo kale tafaariiqda. shirkadaha uu leeyahay ninkan maalqabeenka Yuusuf Cali ayaa gaaray qaaradda Ameerika. wargeyska Dalood ayaana warbixin uu soo saaray kaalinta koowaad ka geliyay sanadkii 2021 shirkadaha iibiya jumlooyinka gaar ahaan mandiqada bariga dhexe, sidoo kalena kaalinta 27aad uu ka geliyay caalamka oo dhan. waxaa jira qisooyin isagu uu ka sheekeeyay oo soo maray xilligii ganacsigiisa ugu horeeyay uu bilaabayay, waxaana uu yiri alaabta yar aan soo gato ma haysan shirkado ama shaqaale ii qaada. taasina waxa ay keentay in anigu aan dhabarkayga ku soo qaadi jiray. waxaan shaqayn jiray subaxdii ilaa saqda dhexe ee habeenkii, waxaana markaan guriga ku soo laabtaan dhulka ku bilbili jiray biyo si aan isaga qaboojiyo kuleelka qoraxda ee aadka u kulul ee ku dhacay maanta oo dhan, ayuu yiri mar uu ka hadlayay ganacsigiisii ugu horeeyay iyo sidoo kale waxyaabaha noloshiisa uu ka soo maray ee aadka la yaabka u leh. waxaa sidoo kale sheekadani ku jirta in mar uu la taliyay nin u dhashay dalka Urdun, kaasi oo ku yiri saaxib iska ilow nasiino iyo raaxo ilaa aad ka gaaraysid 40 sano jirka. waxa uu sheegay in mar walba uu ku dadaali jiray in shaqaalihiisu ay qaataan mushaaraad ku filan noloshooda, sidoo kale waxa uu siin jiray mid u dhigma mushaaraadka ay qaataan bishii si ay waalidiintooda ugu diraan. haddaba daawada waxaa hubaal ah inaad ka dhabeey kartid hamigaaga ee ha ka quusan oo qaado tusaalaha Yuusuf Cali. go'aanka uu qaatay ee ku noqday xilligan milyaneerka. mar walba oo aad leedahay rajo aad ku taamaysid ha ka harin, waad gaari kartaa oo ka dhabeey hamigaaga. haddaba daawada maxay kula tahay warbixintan? si aad la socotid warbixinada kale aad ku xiisaha badan fadlan like noo saar, siina share garay page-kan si asxaabtaada kale oo kugu xiran warbixintan uga faa'iideystaan.